بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. والله سوماليد ميلة جوجتان بإلهي سبحانه وتعالى يدكوان ما يلو عدي نبنبك الله كقادو عدي دن له وفي انت بان الله ديقو انت بكتا الله بكسيو انت دمتي الله ونحريستو واردينتين الله ونحريستان نغير الله نوغدب نحريستو dalka diinta dadka iyo dowladnimadaba ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo badbaadiyo. Maanta waxaan ka hadlaynaa laba qodob. Qodobka koowaad, hay-adda u qaabilsan diiwaangelinta muwaadinimada Soomaaliyeed ama warqadda aqoonsiga qaranka oo sharci soo saartay, kelmadaan ka oranayna. Labo, markabkii Puntland ay horey u qabsatay hubka siday oo Turkiga si official ah loogu sii daayay, iyadana kelmadaan ka oran doonaa. qodobka koowaad, hay-adda warqadda aqoonsiga soo saarta ee dowladda federaalka ah ee NIRA la yiraahdo, National ID Registration Agency, ayaa waxay boggeeda Facebooka kusoo daabacday sharci ay leedahay wuxuu hirgelayaa ama dhaqan gelayaa bisha September 1-deeda. sharcigaasoo ah in aan qofna qaadan karin baasaboor ilaa uu haysto warqadda aqoonsiga qaranka. labo, inaan qofna ku safri karin wadanka gudihiisa oo diyaaradaha localka ah aan lagu raaci karin haddii aan la haysan warqadda aqoonsiga. arrintaas waxaa ka falceliyey Puntland iyo waqooyi bari Soomaaliya. wasiirka arrimaha gudaha iyo federaaleynta Puntland Juxa ayaa wuxuu soo qoray qoraal uu isna Facebookiisa soo dhigay uu leeyahay baasaboorka Soomaaliya oo ahaa baasaboorka u liita adduunka waxaa u sii raaca in hadda lagu gacanta loo geliyay qolo aan nidaamka iyo dowladnimada waxba ka aqoon. waxaa uga jawaabay Fiqi baa isna ka jawaabay. arrinta iyada ah waxaa kaloo ka hadlay wasiirka warfaafinta ee waqooyi bari Soomaaliya maamulka cusub oo isaguna ku tilmaamay inay tahay tacaddi lagula kacay qofka muwaadinka ah ama hooyada iyo aabaha Soomaaliyeed oo dhibaataysan oo doonaya inay baasaboor qaataan oo lagu xiray ID aan ka shaqayn gobolladooda. ciladu marka xagee bay ka socotaa? waa marka koowaad, horta wadamada caalamka oo federal systemka leh qaar baa leh. lama oran karo federal systemka iyo ID-gu way isdiidan yihiin. qaar baa leh qaarna ma leh. anigu hadda wadankan joogo Canada, Maraykanka, Australia, wadamada aan lahayn bay ka mid tahay. UK national ID ma laha. dowladuna waxay u samaysan tahay qaab federal system ah. see marka maxaa qofka aqoonsi u ah? kow, waxaa aqoonsi u ah baasaboorada. laba, waxaa aqoonsi baasaboorkana waxaa bixiya federal governmentiga, dowladda dhexe. waxaa kaloo aqoonsi u ah driving license-ka, baabuur wadidda, warqadda aqoonsiga baabuur wadaha. iyadana waxaa bixiya local municipal governmentiga bixiya. annagu waxaan kaloo leenahay kaar caafimaad. kaarka caafimaadna waxaa bixiya gobolka. marka dowladda federaalka oo baasaboor ku siisay, dowladda maamul goboleedka ama gobolka oo ku siisay kaar caafimaad, iyo dowladda hoose ama municipal governmentiga localka magaalada aad degan tahay oo ku siinaysa driving license, warqadda aad baabuurka ku wadid. qofka baasaboorka qaadanaya maxaa shardi ah? waxaa shardi waa inuu yahay ama national certificate uu haysto, birth certificate, midii uu ku dhashay wadanka, warqadda dhalashada, ama uu yahay naturalized qof markaas dowladdu ay siisay warqad dhalasho oo sidaas dhalashada dalka ku qaatay. warqadaasaa shardi u ah baasaboorka qaadashadiisa. haba yaraatee wax national ID oo looga baahan yahay ama kaba jira Canada iyo Maraykanka iyo ma jiro Australia. Maraykanka waxaa jira mid lagu safro oo national ID ay yiraahdaan oo gobolada qaarkood ay bushgareeyaan inay magaranaysaa ka dhigaan in laga dhigo nationally, laakiin federaalkuna uu fangareeyo, laakiin laga qaato dowladaha hoose laga qaato iyo magaalooyinka uu qofku degan yahay ka qaato. ciladu marka maxay tahay Soomaaliya? waa laba ciladood. waa marka koowaad waa arrin siyaasadaysan
ومركا لبادي ودقالة دون iyo iimaan la'aantii aynu naqaanay qabyo ninkeeda dhamaystira dawladeedii hore ayaa waxa heshiis ku galay oo ku qaatay arintan madaxweynaha hadda jooga Xasan Sheekh markaasna madaxweynaha ahaa iyo Cabdikariin Guuleed iyo xaaskiisa oo hadda wasiirada haweenka waxay shirkad la galeen Pakistan heshiis inay u samayso u daabacdo iyagana lacag ay ku qaataan lacagtaasna qofka lacagta muwaadinka laga qaadana ay qaataan dadkaas shakhsiyaadka ah arintaas oo soo jiitantay dawladdan hadda timi markay soo noqotay oo ay qabyadii dhameystiraysa waxyaabaha ay dhameystirtay kamid tahay waxay u bedeleen Kenya shirkad joogta loo bedelay fiqigan hadda ka jawaabaya qayb ka qolahaas lagu qoray lagu bedelay waxa marka u dheer oo cilada labaad ay tahay madaxweynaha oo meel ciriiriya ka raadinaya doorasho u boobo oo la yiraahdo doorasho qof iyo cod hada doorasho qof iyo cod waa national interest waa wax dadka dhan ay rabaan sidoo kale national ID cidina dacwo kama keenteen laakiin labadaba waxa ku lifaaqan ama ujeedo siyaasadeed ama ujeedo dhaqaale ciladaas wuxuu raadinayaa 2 milyan oo qof ilaa 3 milyan oo qof intuu diiwaan geliyo inuu yiraahdo 3 milyan oo qof baa codeynaysa anigana la iyo codeeyay iyagoo ay haystaan koox isagu uu samaystay oo la yiraahdo hay'adda magaranaysa doorashooyinka qaranka oo 12 qof isagu magacawday oo cidina la magacaabin raalina laga wada ahayn la iskuna waafaqsanayn doorasho ay amamiyeen iyo qoladaas agency-gaas oo isagu uu gacanta ku haysto personal beneficiary u yahay inuu dadka ku khasbo baasaboorka inay ku qaataan ilaa IDs waa nasiib darro meel ka dhac iyo تعدي لغو تعدي قفك موادنك أوي حقيق وي maamuladuna way kaga saxan yihiin waxay inuu kala shaqeeyo inay ka qaataan hadii la qaadanayo ID-ga in laga qaato tuulooyinka inuu heshiis kala galo maamul goboleedyada oo dhaqaalaha ka soo baxaya ay noqoto dhaqaale ay maamul goboleedka iyo degmada iyo tuulada uu qofku ka qaadanayo ID-ga ay iyadoo nafacsato ee aan ahayn qof jeebkii wax ku dhacaya xataa dawladda federaalka lacag u xiroonaysa maaha ee waa lacag ashkhas jeebabkooda ku dhacaysa waana nasiib darrada Soomaaliya ka jirta in siyaasadda oo dhan loo arko meel laga qaniimaysto lacag laga urursado waxaan iyadana la aqbali karin maamul goboleed inuu diidan yahay dawladnimadii Soomaaliyeed inay hore u socoto oo magaranaysa aan mar walba aan lugta is haysano oo aan la ogolayn in dawladnimo ay meesha ka shaqeyso iyadana wax la aqbali kara maaha oo mar walba lagu taagan yahay dawladii oo leeyahay wixii ay samaysaba waxaan xusaya kelmadda juxa ma aha kelmad fiican Soomaaliya baasaboorkeeda adduunka ugu liita ninkii dhihi lahaa maaha labada kun oo siyaasi oo la recycle gareeyo la soo celceliyo buu kamid yahay heer qaranna wuxuu ka soo noqday wasiir heer maamul goboleedna waana ka ah haddana waa ka yahay dadka ay eedu saaran tahay baasaboorkeenu inuu liito kamid yahay yuu ku eedeynaya oo ku ceebeynaya oo uu ku cambaaraynaya in baasaboorkeenu liito muxuu u xusayaa haddii isaga xil ka saarnaa xilkiisiina uu gabay isaga iyo koox isaga la mid ah oo hadda is cayrsanaya ay iyagu wada gabeen shaqadoodii oo ay baasaboorkeenu macna u yeeli waayeen siyaasadda arrimaha dibadda oo foosh xun oo lagu dhaqmayo iyo siyaasadda waddanka lagu maamulo oo qaab daran ay sababtay in baasaboorkeeni la aamini waayo qofka wata ma ujeedaa oo xataa xasan intuu waa dhaweyd nala galay shirkad la yiraahdo East Africa Community oo la yiri faa'iidada keenayna maxay tahay isu socodka aan loo ogolaynba dalka kaliya loo ogolayn aan nahay inagoo kamid ah hani nasiib darrada ayna ku dhacday oo maamul xumada iyo aqoon la'aanta iyo jilicsanaanta iyo danaysiga siyaasadda ku qotanta aan ka dhaxalnay ma inaan isku sii caynaa oo nala ku sii caayo liya baasaboor xun baa leeyihiin nasiib darre ah marka arrintaas kelmadaas intaas ka hornaya qodobka labaad marka hubsiday bay Puntland qabsatay kadib markii uu ku jabay mudana haabayay bareeda meel aan wax badan ka fogeyn oo badda ah marka waxa dhacay xataa in la bilqaystay oo hub laga la digay kadibna ay dawladda Puntland soo qabatay oo la keenay Boosaaso
waxaan ognahay dowladda federaalku inay warqad ka soo saartay ay leedahay waxaa saaran shixnad ay wada leeyihiin dowladda federaalka iyo shacab ganacsato ah. arrintaasoo runtii fadeexad ahayd oo ceebaa ujeeddaa laga lahaa. ujeeddadii laga lahaa waxay ahayd dowladda puntland inay hubkaa boobto oo isku dhajiso. anigu waxaan qabay hubkaa inaan shay laga sii dayn shaksiyan personally, mana sii daayeen haddaan joogi lahaa puntlandna madax ka hadla ama meel kaloo aan jooga ay imaan lahay anoo galmudug haysta hadday imaan lahayd hubkaa waa la degi lahaa gebi ahaanba. hadday dowladda federaalka leedahayna hadda federaalkan ka mid nahay, haddii ay balaayo kale lahaydna dadkii xaqa u lahaa baa helay oo dadkaa loogu shaqaynaya iyo dalka waa degsan laha. laakiin haddii la yidhi dowlad baa sheegatay turkiga la yiraahdo baa sheegatay oo ilaa heer qunsul iyo ilaa heer safiirkii ugu sarreeyey ay puntland tageen, military attachegi u tagay, ay la yimaadeen warqadahaasoo waafaqsan sida ay ii sheegeen qolada maamulka puntland, warqadihii markabku sitay waafaqsan loona sii daayey. ujeeddada dowladdu ay ka lahayd waxay ahayd inay puntland isku dhajiso kadib markay turkigu caddaystaan oo sheegtaan oo ay ku doodaan oo safar usoo galaan oo ay awood iyo wakti ku bixiyaan inay markabkoodii dib u helaan iyo wixii saarnaa, inay puntland u diido oo markaa puntland iyo isku dhacaan turkigu. ujeeddadaasay kala ahayd sida la sheegay kelmadda ah, iyagoo og dowladna ah og inay edabdarro tahay in shacab baa hub dhoofsaday la yirahdo, maadaama markabka wax saaran ba ay hub ahaayeen oo keliya. la yirahdo hubkaas dowladda iyo waxa wada leh shacab, inay khalad tahay adduunkana ay mamnuuc ka tahay inuu hub iyo magaranaysa army ay dad shacabihii ay wataan ay ka gooshto caalamka ay dembi tahay, adduunkao dhan dembi ka tahay, iyagoo og ayay warqadda ku qoreen. dadka u dooda dowladda waxay leeyihiin warqadda waxaa loola jeedaa hub keliya ma saarnayn markabka, badeecad kalaa saarnayd. laakiin sidaa ay caddeeyeen fiidiyoyadii laga duubay oo dhan wax aan hub ahayn oo markabkaa saaran oo muuqan karaa ma jira. sida ay puntland sheegtay oo caddaysayna markabka waxa saaran oo keliya hub. haddii markabkii loo sii daayay turkigana gebi ahaanba waxaa loo sii daayay waxa weeye oo caddaaday inay waxa saaran ay ahaayeen hub, inay hub ahaayeen. marka iyagoo og inay hub tahay, hubna aan shacab yeelan karin, ee warqaddaa ku qoraan ujeeddaday ka lahaayeen sida ay u fasireen dad badani waa in turkiga iyo puntland isku dhacaan. dhinaca kale puntland maxay ka faa'iiday qabashadii markabka? waxay ka faa'iiday arrin iyadana dan u ah oo guul u eg dhankooda, qarannimada soomaaliyana dhaawac ku ah. waa marka koowaad waxay muujinayaan inaan puntland haba yaraatee dowladda federaalka ay ka talin. arrintaasina sax maaha. marar badan baan sheegay puntland iyadaa diidan federalismka, haddana waxay ku eedeysaa dowladda dhexe qofkii markaa jooga qofku doona ha ahaadee inuu central government ideology aaminsan yahay. xasan kaan weligiis federalism buu ku shaqayn jiray. waxay leeyihin wuxuu aaminsan yahay central government oo dowladoo dhan buu rabaa inuu gacanta isagu ku wada dhigo. waa iska fogeyn dembi aad adigu ku sifaysan tahay. waxay u caddeeyeen dowladda intay u diideen inay turkiga siiyaan, waxay caddaynaysaa inaysan dowladda federaalka ah ictiraafsanayn inay ka shaqayso madax ka tahay xukunto deegaanada puntland. arrintaasina waa arrin qarannimada soomaaliya iyo geedi socodka dowladnimo dhaawac ku ah. ilaahay hayna ka soo gaaro maamuladaas iyo siyaasiyiintaas dhowrka kuna ee nagu soo noqnoqda ee kulligood dana kale ka shaqaynaya. dalkana dowlad xoog leh oo macno leh oo dalka sharaftiisa iyo karaamadiisa kor u qaada, xuduudaheedana ilaalisa. ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo sahlo. insaan odhanayaa wabillahi towfiiq. asalaamu calaykum.